محمود هلكن وكتجي محمد علي بن واوكو سنة كعصب أيوة الله الصعدة. أنت تريبه قدام يصير. سنة عصب والله الصعدة مركا خير بوه قامنية نبدو كويمي دولتنا وحوين بوسدا وحنكون مع على البلاء كسروا ماشي. وقتكوا قامنا محمد علي البلاء قاسمة قدام مدحتوية ده أفيان كمدحتوية ده محمود ورسمة جامع وحنا نسولوا هذا كسروا هذا قبل كسناك قامنا مكعقار الخدقني دي أفتح لها نوتي وفتقوا ريو نوي ماتاتي إن شاء الله قل قلبان وفلنا واحد بدن سده ونسولوا وينا. waxaa iyaguna dhankooda halkaasi hadallo mahadnaqa ka soo jeediyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cali Bile waxaana kamid ahaa hadaladoodii hadalkiinu dib u noqon doona waynu wada hadli doonaa horumarka xukuumaddu halkan ka wado iyo hawlaha fiican ay qabateen iyo halkaynu doonayno inuu uga sii dhaqaaqno waynu iska wareysan doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka Ekin degmada Ceergaab sida ay ugu bilatay sanadka cusub iyo nabadda iyo horumarka in sanadka noqon doonto albaabka wanaagga iyo horumarka laga soo galo dalka anagu talaabadii koowaad oo maanta wadnaa oo hadhoween iska wareysan doonaa laakiin waxaan rajaynayaa inaan halka lagu kala hadhayne halka sida uu sheegay barasaabku inay noqon doonto talaabadii muftaaxayd ee fureysay ee horumarka iyo wanaagga iyo nabadda sanaag iyadunba asal ahaan ummadeena halkan bay ka wada timid gobolka sanaag waana halka lagu wada dambaynayaa nabadeedu iyo horumarkeedu